بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مان أصحاب تقييمها يقايها له وحنقص لنا هاي عاصمة الصومالية مقالة مقدشو وحليلنا نجوي فرنتي مان توحي جيتها فرحات وين وأنا سوقه بكريم وحنقص لنا هاي ماشي عسلية السفر كي يقولوها ماشي وقيمها بدن يعني ما ضل ساق وركان help your team organization وين وقت بدن عن إسكا وحقوق سوالف شقية ولا جسوا أبابلي مقالة لندن عاصمة الوطن الإنجليزي كسفر كان اللي أدو فربضان وقصوا عاصمة الصومالية مقدشة كشقية فرنتي organization كان أما عاوي أغونتا وهو بلاوي مدقين كان يجوا الشانس ما يجوا بلاوي وحاول كبرتا ICT information communication technology أردي أدو فربضان وكونوا المقالة مقدشة حرموا فربضان يجليهم أردي وحسوا جيران أردي أغونا يأردي دنيرنا يأردي كلا الصومالية الغرب ICT waxay ku bartaan kombiyuutarada waxyaalaha fara badan qalabka qoreeya marka waxaan aad u faraxsanahay inaan barkada aad u fara badan runtii aniga ka Soomaaliyeed aad u taageeraa dadkan waxay noqonayaan mustaqbalka dadkan ma ahan dadka yimaadeen qoys lacag badan ama madax ay dhashay ma aha waa dadka lagu tilmaami karo Soomaalida rasmiga ee reality ku nool marka waxaan arkay waxyaabo aad ii soo jiitay aan ku arkay tusaale ahaan kolkaas waxaan arkaa tayada dadka ayaa ka muhiimsan tirada dadka waxaan kaloo arkaa aqoonta ku dherjisa da'yarta waa hantida ugu weyn dalkeenu leeyahay dadkana kale gabdhahan wiilashan aqoon la'aan waa iftiin la'aan tan qof walba ayaa yaqaana haddaad computer taqaan bar haddaadan aqoonina baro marka in hadalka la bariyo xataa looma baahna wax alla waxaan ka hadlayno halkan ku arkaysa marka gabdhaha iyo wiilasha halkan jooga waxaa la ii sheegay in waqtiyo badan ay ku qaataan meeshan qalab waxay yeelaan runtii haddii lagu yidhahdo meeshan waa London ama New York ama Toronto lagu yidhahdo qalab qoraysa waxay yeelaan aragtaan projectkan sidan u weyn isla markaana lagu sameeyo si live loo soo wax lagu sameeyo window ugu dambeeyo ku jiro oo aragtaan teknolojiyada touch screen anigu waa markii ugu horeysay oo aan arko qalab noocan ah runtii oo sidan u dhisan anoo teknolojiya wax badan aan soo dhex jiray marka waxyaalaha aan la dhacay waxa kamid ah iyadoo aan joogno bartamaha caasimadda Soomaaliya help your team staffkooda dhalinyarada iska wax ku shaqaysata waxay sameeyeen in systemka ay u isticmaalaan korontada uu yahay solar panel ama ay ka timaadeen qoraxda annaga aan leenahay xilligan aan duubayo waxaa lagu jiraa xilligii winter ayaa lagu jiraa Europe iyo North America waa la socotaan qof walba uu qarqaraya minus ay ku socdaan laakiin waddankeena khayraadkiisa ugu badan waxa kamid ah qoraxda ayaa la isticmaalay arrimahana ma suurageli lahayn haddii isla shaqayn lahayn help your team caawinta aqoonta iyo danyarta dhalinyarada ama mustaqbalka ah ee ku dhashay 30 sano u dambeeyay dagaalkan halista ee waddankeena ka dhacay marka runtii dad badan ayaan arkay madax ayaan la kulmay waxaan arkay dad maalqabeenaan ku arkay magaalada laakiin maanta xilliga aan la qaatay dhalinyaradan waa xilliga ugu quruxda badan ee muqdisho oo aan waqti badan ka maqnaa aan la qaatay marka maxay bartaan waxyaalo aad u fara badan ay bartaan desktop-ka iyo qof walba waxaadna xustaan dharka ay wataan balayaga dharkan waa dharkii waagii hore dugsiyada sare aan ku dhigan jirnay marka dhalinyarada xaafadda qaar way degan yihiin waana xarumo kala duwan marka waxaan leeyahay qof walba oo iga daawanaya social media ama website ama radio ama TV ereygaas waa muhiim hadda ku qoran help your team isku day hataa inaad gashid online oo aad ku qortid help your team oo ah erey runtii Ingiriis ah laakiin aad awood ku leh help your team macnaheedu caawi aqoonka marka aqoon kaliya maahan waa dhalinyaro oo annagoo kala waddan ku soo korno annagoo waqtigan soo koreen danyar baan ahay abayaasheena wasiiro ma ahayn maalqabeena ma ahayn waa lugeyn jirnay iskuulada markaan aadi jirnay waagii barisamaadka waddanka Soomaaliya marka waxaa mahad leh dhammaan shaqaalaha ku sugan waddanka UK shaqaalaha ku sugan waddankan Soomaaliya waddankeena ah inay sameeyaan effort aad u weyn oo isugu keenaan dhammaan dhalinyarada marka haddii aad timaadid magaalada Muqdisho waxa ugu fiican aad sameynayso maahan liido aad tagtid oo cuntaas ku soo sawirtid maaha nin madax inaad ku soo sawirtid waxa ugu fiican aad sameyn waxay tahay bal 10 daqiiqo aan la soo qaato hal maalin aan la soo qaato help your team waxay tusaysaa in magacu sii faafayo dhalinyarada ka shaqeysa UK
iyo kuwooda ka shaqeeya halkan joogaan waa iskaa wax u qabso ama volunteer ay ku shaqeeyaan waan la shaqeynay 5 sano la soo shaqeeyay aniga waxaan sameynay inaan waxyaabo badan isu keeno dhanka teknolojiyada aan ka caawinay waxyaabo badan aan sameynay marka waa mahadsantihiin waxaan idinka codsanay kaliya raadiya halmeetin raadiya gacan nasiya nala shaqeeya meel badan joogta kaliya UK iyo Soomaaliya dadku dhan jooga waxaan ayaa loo baahan yahay dhalinyarada sida iskuuladu way kala duwan yihiin way fara badan yihiin marka waxaan leeyahay reer Harbiya team boqolkiiba boqol waa mahadsantihiin iyo dhalinyaradan inta soo keenay wax baraysaan qeer Allah idin siiyo Harbiya team iyo Soomaaliya ha noolaato waa mahadsantihiin